بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها دولة بوتلاند قدوميها برلمانكا قدوميها محكمة السرع أما سياحيها با مدحويني هوري أحنا سنتر كترسن دولة فدرالكا كولياشا دولة بوتلاند gudida doorashooyinka gudida ku-meelgaadhka doorashooyinka marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay nooc walba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ma ilaawin saxaafadda oo ugu horeeyaan iyagu waaba igu soo dhowiy agteeda taagan yihiin caawa kelmaddii dowladda ama xukuumadda aan raaho ama fulintaba runtii madaxweynaha oo harsan oo odhan doona halkan only waxaan usoo taagay anigu inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha iyo qodob ah inaan u markhaati furo kollay wuxuu odhan doono oo ah inay naga go-an tahay oo dowladdan puntland ka go-an tahay in مشروع كان one man one person one vote inay dowladda tan ka go-an tahay inaan u markhaati furo aniguna aan ku taageeri doono kulana shaqayn doono. waxaa kaloo farxadii ah inaan caawa arko guddidii doorashooyinka oo runtii muddo yar magacownayd oo soo bandhigtay sidii madaxweyne Faroole sheegay waxyaabaha sharaxaadda midhan oo sharaxan oo kalarada badan leh. waxa aan ku kalsoonahay oo runtii markhaati madoonto ah oo aanan caawa waxba ugu ballan qaadayn dhallinyarada iyo dumarka oo ah kuwa one man one person one vote kuwa ka faa'iideysan doona. waayo waxaan maqlaa ama aan aaminsanahay dhallinyarada iyo dumarku inay puntland ka yihiin ama soomaaliyaba 75% iyo wax la mida marka iyagaaba ayna muquunin doona oo maxay ahayd toy madax ku-xigeen bay baryayaan iyo maxay tahay boqolkiiba 30 waxaan rajaynayaa inay xisbi walba ama kursigii soo baxaba ka koobaad noqon doonaan duca la-aan inay ku heli doonaan baan qabaan. annaguna waa aamiin baan u leenahay waa kula shaqaynaynaa runtii. intaa haddaan ka gudbo waxaan u gudbayaa doonayaa intaan madaxweynaha aanan ku wareejin inaan kelmad uga faa'iidiyo. caawa waa farxad weyn waana la arkaa haddii runtii qolyihii hore dowladdaa qudheeda ka mid baan ahaa oo cabdiraxmaan shooga sheegayo waa wararkaan maan ogeyn laakiin annaga guddi un bay noo ahayd oo howlo ku jira waxaan idiin sheegayaa inaanu muddo yar dowladdan oo jirtay inay magacowday oo soo dedejisay inay guddi magacowdo. waxaa kaloo aan idiin sheegayaa haddii aanu nin baa yidhi inaanan isku dhajinayn oo muddadan yare aanu meesha joogno waxaa laga yaabaa cabdiraxmaan isagu waa madaxweyne cabdiraxmaan isagu waa soo bandhigo waxaa laga yaabaa dee inuuba isubay inuu ku soo maxay tahay xusbigiisaasi inuu heli doono. annagu iskuma dhajinayno hadda oo dib uma dhigayno guddiyadan iyo ma baabiinayno sidii dowladdaydii hore laakiin nin baa wuxuu yidhi neef buu gowraco markaasuu yidhi midigta u dhac markaasuu yidhi bidixdaana babele ku ogeyn oo xaggii bidixda u dhacay marka xusbiyadaasaana babele ku ogeyn iyo shacabka kalsoonida shacabka baanan bele ku ogeyn. sidaa awgeed waa soo dedejinaynaa. waxaan kaloo idin sheegayaa caawa habeenkaa weyn waa farxad inaan shacabka reer puntland oo xoogaa laga yaabo ayaamahan ina soo dhaafay xoogaa warwara qabay waayo farxadna way ahayd warwarna waa jiray raxmaad baynu helay
الحمد لله رب العالمين وحيلون يرير باجري والله قصوا كمان كره waxaan idin sheegayaa hawlaha iyaga ah waxa ugu weynaa waxay ahaayeen wadooyin inaga damage garoobay iyo dad iyo xoolihii wax ka gaadheen oo ama baahi ay jirto waxaan doonayaa inaan kaga faa'iideysto halkan oo si aad farxaddu ay idinku labanlaabato in hawsha iyada guddiyaan u saaray inaad arki doontaan bariba laga bilaabo ama maalmaha soo socda dayuurada aydan indhoweyda arag oo dadkeenni meelihii lama gaadhaanka ah gaadhi doona oo cunto geyn doona oo daawo geyn doona ayaanu idinka bushaaraynaa madaxweynuhu inaga maqnaa budhiisa waa ugu bushaaraynaa inuu maxay tahay la soo kulmay marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هذا أنا وحنا كسر دوينا يا مدحوينا حتى ولد بودلان مستر سعيد عبد الله الدري